riyaqiyo hawraarta mansada halkaran qadarilo heeseya gabayada halku badhigayay hargeysa hadallo riyaqiyo hawraarta mansada halkaran qadarilo heeseya gabayada halku badhigayay hargeysa geyga hoboladiisiyo heesaaga caan baxay rugtii lagu habeeye fanku heerku gaadha geyga hoboladiisiyo heesaaga caan baxay rugtii lagu habeeye fanku heerku gaadha hoygii murtida iyo hooyadii abwaanka. Asalaamu calaykum dhammaan asxaabta. waxaanu muuqaalkayga tijaabinaynay oonu eeganay waqtiga habeenimada sida caasimadda Hargeysa hadhow wanaag u eeg tahay. markaa muuqaalkan wuxuu ku saabsanaa inaanu ogaano Hargeysa iyo habeenimada sida u shidan tahay. markaa Hargeysa waa caasimad ka mid ah caasimadaha Somaliland, second capital city of former Somali government. imika waxaanu waqti xadarkan dhex socona caasimada bartankeedii. markaa xilligan habeenimada waxyaabahaanu eeganay waxaa ka mid ah inaanu ogaano in Hargeysa ay tahay safe habeenimada. markaa waqtigan waa waqti habeenimo waa waqti u dhaxaysa cishaa iyo maghrib. sadka arkasaan dadku waa ku badan yihiin waqtigan magaalada. markaa waqtigan ayaanu go'aan qaadanay in aanu sameyno waqti aanu ku qaadano oo waqtigayga aanu magaalada duubno oo bilicda magaalada dadka tusno, gaar ahaan asxaabtan ku xidhan YouTube channelkayga. markaa waxaanu doonaynay inaanu tusno quruxda magaaladu habeenkii aad iyo aad ayay u qurux badan tahay. waa ka qurux waxaad moodaaba ka gaalidii aan joogi jirno kale inay tahay. quruxdeedu waa qurux aad iyo aad ula dhacso oo maasha Allah. markaa quruxdu way ka duwan tahay quruxaha kale, waayo Kigali waxay ahayd caasimad develop, laakiin Hargeysa iyadu de waa develop maaha sida Kigali. laakiin waxyaabaha kala siman tahay ama ay kala mid tahay Kigali ayaa inay kala mid tahay jawiga nabadda oo jawi nabadeed ay ku jirto. jawigaas oo aad iyo aad u fiican. jawigaasoo jawi aad waqtigaaga ku qaadan karta, aanad cidna u baahnayn inaad wax weydiiso. sababta xilligan aan u go'aansanayna waxay ahayd inaanu eegno Hargeysana safe. It is safe at night. That's the question we are trying to answer in this video, and we have decided to record this video. This video is a video that will allow and will have some insights in Hargeysa, because Hargeysa during the other times it was not like safe like the way it is now, but now it's a very 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 safe. markaa intaananu ku noqon caasimadii Kigali ahayd waxaanu iminka joognaa oonu kasoo hadlanaa Hargeysa hadhow wanaag. Hargeysa waxay kamid tahay caasimadaha Soomaaliyeed, gaar ahaan caasimada jamhuuriyadda barakeysan. markaas sababtaa darteed waxaanu go'aansanay inaanu muuqaal aad iyo aad u qurux badan ka sameeyo. markaa muuqaaladu uu ka duwan yahay muuqaaladii hore. waxaan ku eeganaa waqtiga Hargeysa oo waqti xilligan oo kale aad iyo aad u qurux badan oo lagu qaadan karo, oo markaa jawigeedu aad u macaan yahay. waa jawi aad iyo aad u qurux badan. markaa jawigan aan
go-aansaday in aan muuqaal ka sameeyo jooga habeenkii ee Hargeysa waa ka duwan yahay joogyada kale waana ka qurux badan yahay marka waan ka maarmi weynay inaan muuqaal ka sameyno hadallo riyaqiyo hawraarta mansada halkaran qadarilo heeseya gabayada halku ee badhigayay Hargeysa hadallo riyaqiyo hawraarta mansada halkaran qadarilo heeseya gabayada halku ee badhigayay Hargeysa geyga hoboladiisiyo heesaaga caan baxay rugtii lagu habeeyey fanku heerku gaadha geyga hoboladiisiyo heesaaga caan baxay rugtii lagu habeeyey fanku heerku gaadha hoygii murtida iyo hooyadii abwaanka halkani waa qayb kale oo ka mid ah suuqa marka halkani waa Hargeysa caday oo ay tahay xilli habeenimo saacada Afrikada Bari xilligan waxay sheegaysaa 7:20 markan muuqaalka shoot gareynay marka muuqaalkan waa muuqaal aad iyo aad uga duwan muuqaalada kale marka muuqaalkan wuxuu ku tusayaa quruxda iyo bilicda ay Hargeysa leedahay habeenkii quruxda iyo bilicda ay Hargeysa leedahay waa mid ka duwan meelaha kale sababtoo ah habeenkii sida doontaad u dhex socon kartaa wax laga yaabaa inaan xitaa cid kula hadlin ma laga dafin ammaanka boqol markaas arkaysan joogaad ku arkaysan waa xilli fiidnimo dadku waa iska ganacsanayaan waa iska shaqaysanayaan qof walba wuxuu u ordaya ama uu raadsanaya xilliga nolol maalmeedkiisii qof walba nolol maalmeedkiisaasuu gacanta ku haystaa marka qof eegaya oo kale ma jiro marka waa intaasuu weeyaan marka la socod wanaagsan hadallo riyaqiyo hawraarta mansada halkaran qadarilo heeseya gabayada halku ee badhigayay Hargeysa hadallo